barashada xirfadda caafimaadku waa mid muhiim ah oo u baahan aqoon, karti iyo markaa dadaal si aad u guuleysato. Su'aal: maxay tahay waxa laga rabo si aad u barato xirfaddan caafimaadka? Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta waxaan kuu soo gudbin doonaa dhowr qodob oo kaa caawinaya si aad u barato xirfaddan caafimaadka. qodobkooda waxa weeye go'aan iyo dadaal. go'aan yeelo oo markaad bilaabayso xirfaddan caafimaadka waa inaad go'aansataa inaad xirfaddan caafimaadka markaa bilowday inaad markaa dhammaynayso dadaalkeedii waa inaad la timaadaa. qodobka labaad waxa weeye waxbarasho heer sare ah waa inaad leedahay. camal dugsi sare waa inaad soo dhamaysay, weliba maadooyinka sida biology-ga, chemistry-ga iyo physics-ka waa inaad ku fiican tahay. xirfaddan caafimaadka markaad bilowdayso waa inaad biology-ga ku fiican tahay, chemistry-ga waa inaad ku fiican tahay, waayo iyagu wax badan bay kaa caawinayaan. Isagoo hadda waxaanu aragnaa dadyo fara badan oo aan xitaa secondary-ga aan soo marinba inay markaa xirfaddan caafimaadka bilaabayaan. taasina markaa waxay keentaa caqabad aad u badan. marka waa inaad marka hore dad xirfad caafimaad bilaabayso waa inaad dugsigii heerka sare ahaa ama dugsiga sare waa inaad markaa aad soo dhamaysay ka markaad dhamayso den markaa waa inaad raadisaa meeshii ku habbooneed aad xirfadda caafimaadka aad ka baran lahayd waa inaad markaa aad raadisaa. qodobka saddexaad waxa weeye tusaale ahaan meeshii waad helnay aan caafimaadka ka baranaynay jaamacad hebel baan caafimaad ka baranaya iyadaa ku wanaagsan waanu helnay. qodobka markaa kusoo xigaa waxa weeye waa inaad yeelataa markaa dada jaamacadda markaad dhamayso waa inaad yeelataa markaa khibrad waa inaad yeelataa. tusaale ahaan oo kale adigoo jaamacadda ku jira xirfadda caafimaadka waxyaalaha kaa caawinaya waxaa ka mid ah waa inuu ardaygu helaa practical waa inuu helaa. oo haddii theory loo dhigo theory wax badan kuma faa'iideynayo ise waxa uu muhiimadda la doonayay maanta in berri inaad ku shaqaysato oo maanta lagaga baahan inaad barato waxa weeye waa practicalkaagu waa inuu saxsan yahay. markaa siduu practicalkaagu saxmana waa inaad markaa xirfaddaadii caafimaadka waa inaad ku qaadataa goobihii markaa caafimaadka sida markaa cusbitaaladii, farmasiyaasha, dhammaan markaa qaybaha kala duwan ee markaa adeega caafimaadka bixiya waa inaad markaa xirfaddaada yaa tababar waa inaad markaa halkaa kusoo qaadataa. taasina markaa dhow waxay kaa caawinaysaa inaad noqoto markaa qof isagu isku filan. haddii markaa keliya theory intaad qaadato oo aad practical qaadan weydo iyaduna markaa dhibaatadeeda ayay leedahay. qodobka afraad waxa weeye waa inaad haysataa ruqsad shaqo. tusaale shahaado waa inaad haysataa. shahaadadan waxay kaa caawinaysaa dadkii markaa aad shaqada u doonanaysay ayay markaa kaa caawinaysaa inay markiiba iyagu ku aqbali karaan. oo tusaale ahaan oo kale haddaad tiraahdo waxaasaan soo dhameeyey caafimaadkaan soo bartay, nursing baan bartay, haddana aad shahaado ka wadan dee cidna ku aamini mayso. markaas shahaadadan yar waxay caddaynaysaa in markaa lagu aamino ayay markaa caddaynaysaa. waxyaalaha kale soo raaci kara waxaa ka mid ah haddaad doonaysa inaad barato xirfaddan caafimaadka waxyaalaha soo raaci kara waxaa ka mid ah inaad communication skill leedahay. communication skill inaad leedahay oo xirfaddii isgaadhsiinta iyo dad la xidhiidhka waa inaad leedahay. waa inaad tahay qof naxariis badan oo naxariis waa inaad leedahay oo dadkii aad u turi karaysaa, waayo dadyo aad u tabcaansan ayaa markaa ku imaanaya. war intaan kuu soo sheegay waxay dhammaantoodba kaa caawinayaan inaad markaa xirfadda caafimaadka aad barato. xirfadda caafimaadkuna aad bay markaa u badan tahay, waayo waxaa ka mid ah sida nursing-kii, midwifery-gii, dhammaan markaa waxaa soo hoosgelaya medicine-kii. marka xirfadda caafimaadku way badan tahay. marka xirfadda caafimaadka waxaa markaa ugu badan ee loo baahan yahay waxa weeye inaad go'aan yeelato, dadaalna la timaado. waayo ma aha sida businesska, ma aha sida kuwan dee socialka, ma aha. waxaa loo baahan yahay wax walba inaad mar walba wixii lagu dhigo inaad markaa garan karayso weye. inahaasaan ku joojinayaa. haddii markaa aad muuqaalkan wax badan aad ka fahanteen u sheer gareeya asxaabtiina. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.